بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هستلا فيتوريا سيمبر خياش. anagu waan soo dhaweynayaa iscasiladii jawaari waxaanu ka qaadanay dhanka nabadda khilaafka dowladdu waa waxna dhibayo jawaari maanta ahayd inuu baarlamaanka ka hadlo maanta dib baa loo dhigay wixii jira dee allahu yaclam laakiin mar hadduu ka dhawaajiyey waan isku tanaasulnay aad baan usoo dhaweynayaa iscasiladii jawaari laakiin dhib weyn baa iminka bilaabanaysa soomaali taabanayso jawaari jagadii uu dowladdu u hayo guddoomiyaha baarlamaanka ahaa wuu ka tegay anigu waxaan soo jeedin lahaa in jagadii jawaari uu ka tegay laga ilaaliyo nin digili mirifle ah credibility ma leh dad daacad maaha digil iyo mirifle waxay u badan yihiin weliba mirifle markii laga hadlayo waxay u badan yihiin xaasidiin nin jagadaa buuxin karana ma qabo waa illiterate intooda badan waa dad aad iyo aada raqiis ahoo masaakiin ahoo dad tuugsada ah waa dad suufiyo ku jirto qaadiriyo ku jirto halba ku jiro dad bidco ah weeyaan ma qaadi karaan mas-uuliyadda inta la eg jawaari keliyaha ku jiri maanta uu iska tegay waxaan doonayaa digil iyo mirifle nin ah in jagadaa loo doono waxaan la soconnaa oo aan rabaa maanta inaan kasoo dhawaajiyo jawaari malaa'ig maaha sida loo sheegaya maaha waxaanu la soconnaa jawaari hantida jawaari uu leeyahay waa millions ay kor u dhaaftay gasar buu baydhabo ka dhistay gasar buu muqdisho ka dhistay dee halkuu ka keenay bishaaradu qaadanayo waa garanayna marka jawaari maaha nin nadiif ah taariikhdu jawaari waxay qoraysaa marnaba kama hadlin dhibta jirta shabeellaha hoose dhibta taagan baaye bakool inay digili mirifidhan xerooyinka qaxootiga muqdisho ku jiraan jawaari wuxuu ahaa nin calooshi u shaqaystaha isagaba shariif sakiin iyo jawaari meel bay iskaga xirnaayeen waxay ku shirgoobeen calooshood u shaqaystayaal inay danta ay dadkay kasoo jeedaan waxu qabaan iyagoo ciyaalkooda u shaqaystaan waxaan codsanayaa in la magacaabin nin digili miriflo ah dib loogu magacaabin jegada in aan garto digili mirifle waxaa maanta lasoo wadaa kuwa ka xun jawaari oo calooshooda shaqaystayaalah matalan in hadda qof daacad ah ma haystaan mana keeni karaan waxay wataan ninay mursal yidhaahaanaad garanaysiin oo wasiirka gaashaandhigga ahaa oo la garanayo inuu tuug iyo dalaal yahay eenantaa khadiijo qabo waxaan kaloo soo raacinayaa xaaji cali nacasna waa lasoo wadaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha asna waan garanaynaa wuxuu yahay ibraahim yarow wasiirka arrimaha gudaha ibraahim yarow asna waa lasoo wadaa kulli waa basaasiin calooshoodu shaqaystayaala waa daba dhilifka shariif sakiin iyo jawaari iyo kheyre waxaan codsan lahaa in loo furo baarlamaanku rag kale oo soomaaliya kalsoonidaa qaadan karaan oon maafiya ahayn oon siyaasiyiin ah ee ka buuxo baarlamaanka marka baarlamaanku waxaan soo jeedinayaa ha laga ilaaliyo digili mirifle 1960 waxaa baarlamaanka loo dhiibi jiray digili mirifle sababta loogu dhiibaayana waxay ahayd inay yihiin dad nacam ah inay yihiin dad laba kumi oo weligood tuugsan jira oo sadaqo qaadan jiray inay waddanka hogaamiyaan wax jira maaha berigii siyaad bare ayuu ahaa ninkii ka qaaday in baarlamaanka loo dhiibo nin digili mirifle ah uu arkay kartidooda inay dad jira ahayn waxaa loo dhiibay liiqliqato maanta dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa iyo baarlamaanka iyo xildhibaanada inay isxilqaamaan digili mirifle meesha laga saaro digili mirifle waa dulli iyo waxa weeyaan masaakiin da-da waa dulli antana waa masaakiin dad go-aan leh ma leh dad go-aan goon karo ma leh waa dad xaasidiin ah waa dad naaqus ah waa dad dhiman kama soo bixi karaan jegadaha baarlamaanku anigu waxaan kusoo jeedin lahaa 4.5 ah lagu qabtay power sharing jagadaha waxaa iskale 4.5 ah lagu qabtay power sharing 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 4.5 ah lagu qabtay power sharing
hiraab ama irir samaalaa leh jegada baarlamaanka waxaa leh hawiye waxaa leh hiraab waxaa leh diir waxaa leh irir samaal nin kaleo baarlamaanka qaban kara male haddii la doonayo in soomaaliya wax loo qabto ma doonayno dad masaakiin oo dadkoodii iyo dalkoodii dulmay inay baarlamaanka qabtaan ay dulmaan marka baarlamaanka waxaan usoo jeedinayaa soomaalidu kale in lagu magacaabo shiiqaa lagu horeyso hiraab ugu horeeyo irir samaal ugu horeeyo dir qaban karo hawiye qaban karo abgaal loo dhiibi karo habargidir loo dhiibi karo oo wax goosanayo baarlamaanka waa meesha ugu muhiimsan power sharing haddii la yihaaho dadka soomaali u badan waa inay xilka qabtaan ay xilkooda gutaan ma aha inimadan yaryar iyo maaha nimankan eelaayda ah in meesha lagu soo wado habeenii maalin dee qaali huursho ma xukumin inuu nin digili milifle baarlamaanka qabto digili milifle waxay ku fashilmeen muddo 50 sano ka badan inay baarlamaanka hayaan ninka kaliya ku jiray jawaari oo ahaa asna wuxuu ahaa tuug kaloo shaqaystay gasaro ka dhistay wax walba ka dhistay baayo bakool iyo shabeellaha hoose wax u qaban dadkii wax u qaban iska daa Soomaaliya wax u qabto meesha wuxuu shisheeyo u joogo ilaalinaya marka waxaan soo jeedinayaa baarlamaanka waa in loo dhiibaa nin abgaal ah ama habargidir ah ama gadabuursi ah ama isaaq ah ama irir samaale ah sida loo kala badan yahay baarlamaanka haddii daarad loo dhiibano kheyr ma keenay haddii digili milifle lagu celiyana waa baarlamaan masaakiin oo lagu tuugsanayo mooshin marba soo noqonay marka waxaan soo jeedinayaa baarlamaanka waxaa xaq u leh in loo dhiibo hiraab in loo dhiibo irir samaale in loo dhiibo dir in loo dhiibo soomaali kale oo laga dheereeyo digili milifle haastala victoria sempre qaash waan salaamay meel bajoogtiin baarlamaanka ilaaliya baarlamaanka nadiifiya ka saara raggan eelaayda ilaaha maanta talada hagaajiyay jawaari wuu iscasile jawaari malaa'ig maaha jawaari is a billionaire wuu shaqaystay shirkiina wuxuu u joojiyey wuxuu sugayaa inuu gacanta ku dhigo $5 milyan haddii $5 milyan uu helana wuu iska tagaya haastala victoria sempre qaash mac salaama